soddonkii sanaba 10 sano ka mid ah qof ayay noloshu u shidan tahay qofna way ka dansan tahay وصاحبك نولشة شاهد بيساني وكل وذاقية فيديوغان تواشا وعن السلام عليكم وانكو سلامي صاحب وانكا قمها دعلنا يا وحوالبا هداد كومنتي لو وذاقتid iyo hadaad laagi saartid iyo hadaad mar sheeri samaysay waa saaxiibka shaahid biisani oo videogan qaasatan adiga kula wadaagaya videogan gacmaha waxaan ku hayaa laba shumac mid waa daaran yahay midna waa dansan yahay midka daaran qof walbaba saddex si ayuu kaga wanaagsan yahay dadka kale ama hanti buu leeyahay uu muuqanayaa sida shumacaasi uu muuqdo ama aqli buu leeyahay uu muuqanayaa sida shumacaasi uu muuqdo ama qalbi wanaagsan buu leeyahay uu muuqanayaa sida shumacaasi uu muuqdo dunidan aan ku wada noolnahay qof walbaba maalin ayuu leeyahay hadduusan maalintaasi ka faa'iideysanin adduunku waa harka labadiisa galin qofkan tusaale ahaan waxa uu soo qaatay ama wiil ama gabar ama marwo ama saygeeda haddii aad lacag leedahay ama haddii aad qalbi wanaagsan leedahay ama haddii aad maskax wanaagsan leedahay dadka agagaarkaaga ku nool waxa aad ku dadaashaa inta aad waxa haysatid inaad la wadaagtid tusaale ahaan qofkani waa odagaagi oo kale ama waa xaaska kuu dhaxaysay waxaa laga yaabaa inaad ka caqli badan tahay ama aad ka hanti badan tahay ama aad ka qalbi wanaagsan tahay haddii aad qalbigaaga wanaagsan aad wax ka bartid ama hantidaada aad wax ka siisid ama maskaxdaada aad la wadaagto caqliga tusaale ahaan oo aad ifisay labadiinaba waa ifaysaan labadiina markaas u iftaan wax uun baa iska dhici karo noloshu waa wajiyo badan tahay qofkan adiga daaray qofkaana waa adigi waxaa laga yaabaa carqalad inay kula soo daristay waa dantay qofkii aad garabka siisay ama caqli aad garab ku siisay ama aad hanti garab ku siisay ama aad qalbigaaga wanaagsanaa aad la wadaagtay maalinta uu ku arko inaad dantay wuxuu uu ku dadaalayaa inuu ku fiyo waxaad noqonaysaa qof nool mar walba waxaad noqonaysaa qof jaaniskiisii nolosha kaga faa'iideystay haddii ay qofkani xataa dhibaato soo gaarto weli adigii baad taagan waad caawinaysaa noloshu waa noocaas haddii midkiin midka kale uusan u naxariisan midkiin midka kale waxa uu haysto uu la wadaagin midkiin midka kale caqliga la wadaagin markii aad kaligaa taagan tahay oo aad ifaysid oo aad isku haysatid dadka kale dhan inaysan waxba ahayn marka ay dhacdo ama dhibaato aad la kulantid saas ayaa u damaysaa waxaadna la mid noqonaysaa dadkii aan waxba haysanin waxaa kaloo jirta tusaale ahaan qodobkii koowaad waxa uu ka hadlayay qofka waxa haysta ama caqli ama maskax ama qalbi wanaagsan haddii aad adigu intaas qofkani ku og tahay ha isku dayin inaad uga xumaatid ama aad ku dhibaataysid inta mar aad intuu dhawaatid aad isleedahay dhibaatay waxaa kugu soo daadanaya shumiciisa waxaa ka soo daata waana gubanaysaa mar walba aad u dhawaatid aad istiraadi dhibaatayni waxaa laga yaabaa dabka inuu geesahan kaa gubo adigana aad ku dhibtootid waxaa jira qaabab badan oo qofkani haddii uu kaa caqli badan yahay ama kaa maskax badan yahay ama kaa qalbi wanaagsan yahay qaab badan oo loola macaamiltamo ayaa jira waxaan kula wadaagayaa sheeko dhacday sheeko markaa maqashid ama buug aad akhrisid waxay kuu sahlayaan fikrad badan inaad ka dhaxashid waxay kale kuu sahlayaan in maskaxdaada ay ballaarato yaraan saaxiibo nahnay adigu i daawanaya saaxiibkii ayaa tahay bay sheekadani ku dhacday dugsi sare ayuu dhameeyey wuxuuna ku dadaalay siduu meel iskaga soo saari lahaa laakiin fikirka koowaad ee maskaxdiisa ku soo dhacday waxay ahayd dugsi sare dhamaysay maxaad qaban kartaa wuxuu yiri qof baa gacan ku qabanaya wuxuu raadiyay qof wax haysta oo isdhihi kara alle qofkaani waa qof ama jaamacad ku diraya
ama ganacsi kuu furaya. qofkii markuu wacay qofkii wuxuu ugu jawaab celiyey loser ayaa tahay. wiilkuu u qaaday waaye wuxuu yidhi weligay waxba ma weydiisanin, weligay ganacsi muusa ii furin, hore wuxuu iga yidhi loser baa tahay, khasaariye baa tahay. dad badan waxaa jira marka aad u baahatid hadday wax yariisa ku dhaamaan ama wax yar haystaan iska kaa xukuminaya ama ku liidaya. yarkii eragaasi muusan ku liidanin meesha ayuu iska qaaday, dadaal dheer ayuu sameeyey. dadaal dheer kadib waxa uu ka mid noqday shaqaalaha dowladda. yarkii ama qofkii uu shalay u baahnaa ayaa maanta u soo baahday, waayo arrin ayaa ka soo gashay dowladda. yarkii magaaladii ayuu yimid, muddo ayuu joogay, arrintiiba u hagaagi weysay. waxaa lagu yidhi hebel ayaa dowladda u shaqeeya, ee hebel ayaa arrintan ku dhammayn kara. wuu wacay, wuxuu ku yidhi magaalada ayaa imid, ima soo raadinaysa miya? horey wuu ka xukumayey, waayo qofku markuu magaalada yimaado kan loogu yimaado iyo kan yimaado waa in kan yimaado wax soo raadiyo si loo martigeliyo. waxa uu muuse ka soo qaadin, okay waa kulmaynaa buu yidhi, maxaa u baahan tahay? hawshii buu u dhameeyey, si fudud buu ugu dhameeyey, waxna muuse xasuusinin. waayo qofba qofka uu ka aqoon badan yahay waa ka naxariis badan yahay, qofba qofka uu ka aqoon badan yahayna waa ka caawis badan yahay. waayo wuxuu rabaa qof walbaba inay hawsha u fududaato. qofba qofka uu ka aqoon yar yahayna waa ka xaasid badan yahay. hawshii markuu u dhameeyey yarkii sidii buu ku tegey. sheekadu waxay tahay qof haddii uu ku xumeeyo ama aad hanti uga baahatid ama aad garab uga baahatid u ku liido, ha noqon qof ku tiirsan qof, ee waxaad ku dadaashaa inaad meel iska soo saartid. beri ayaga ayaa kuu soo baahanaya. waan kaaga mahad celinayaa subscribe-ka ay samaysay. waan kaaga mahad celinayaa saaxiibnimada aan ku nahanay dhan walba, haddii ay Instagram noqon lahayd iyo haddii Facebook noqon lahayd iyo haddii YouTube noqon lahayd. meel walba adduunka ka joogtid waxaan kugu rajeynayaa cimri dheer iyo caafimaad iyo maskax shaqaysa. السلام عليكم.